madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka hadlay bandhigga carwo caafimaad oo magaalada Hargeysa lagu qabtay waxa uu ka hadlay khilaafka ka taagan komishanka doorashooyinka ee cusub oo ay dhawaan xisbiyadu mucaaradku ay sheegeen in aanay wax wada shaqayn ah la yeelan doonin madaxweyne Biixi ayaa komishanka cusub ka difaacay eedaha xisbiyada mucaaradka waxaana uu sheegay in komishanka cusub xulistiisa iyo ansixintiisaba loo maray hanaan sharciga waafaqsan waxaana uu madaxweyne Biixi si gaar ah ugu jawaabay hadlo dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro maalmahan waxa maqlaysaa waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharciga baa la jabiyay raacimana go'aanka baarlamaanka soo baxay dartiba sharciga laga dooday madaxweynaha maroosaday qabtaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax tago inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay dhahayn komishanka cusub ee doctor shaqeynayna waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyay heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiiyey haddii qodobka ay ku doodo waxay dhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa damba laga dhigay haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anigu mana saxeeyo qodobkaa mana kubanana heshiinine oo ma jiraan leeyahay hadday hayaan ummadda hoos soo barigan inaanu qodobkaa ku heshiiyen annaga ka garanay haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa doonaysa wax ku noo sheeg qodobkaa laguma heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto xubnada cusub sababta loogu dari waayey kuwii hore yaan lagu soo celinaa waa sharci aanaan dhaaf karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaalla xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4 waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqtigu ka dhammaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxaa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga qaranka wadani guddoomiyaheennii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida guurtida waa ixtiraamayna saxiixiisa waa la raacaya isagaa saxeexay mudane guddoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labadaa qodob hadday wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeriye maha qodobka waa baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubinta annagaa diidan haddaan lagu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorasho geli mayno waxa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu talo uu mararsadaa waa kariitalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana waa qodob isu keenaay sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxa soo jeedinaya guurtida mid waxa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wicid saddexna madaxweynaha cid waliba way soo qortay ku weeyey midna arrintiisa ku faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyey wicid ku keenay waan gudbiyey guurta labadeena waan gudbiyey saddexdii aniga ayla noqotana waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo dantay riixinaya ama binaadaan qaldamada waxa iga dambeeya laba isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo goloweynaha baarlamaanka 28 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaas qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankana wuu celiyey yeeri maynu wadani yidhi diktaatoorida ka weyn baarlamaanka yeeri maayo xagga lagu arkay dee cabdiraxmaan ka filayay inuu wanaagsan oo shtibil ahay qolo jawaab taa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo guddoomiyihii baarlamaanka ugu weynaa saxeexaya ee dalka 10 sano sharciga u saxeexayay adoo guddoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurta wax sharafeed milkiye maamus ku leh dee bal arrintaa ka fiirsan yeeri maayo baarlamaanku waa arrin adag war baradina ka garan qashci weynu anagu baarlamaanku wuxuu waa ogola hadduu kaaga soo celiyo waa ogola labada qodob garta ayaan cadeynayay oo midii hadda ka cadeynayay wixii ka soo noqdana waynu arki doonaa waxaan leeyahay aynu shuruuciisa u raacno aynu isku ixtiraamno markaynu doodayno cayda nin walu yahay iyo da walu yahayba in laga sii daayo midiyaha dhaqan gooniya maaha dhaqankeena muu ahay dhaqan la daawado ugu farxan maaha in la iscaawo wax badan baynu sunahay haddaynu ku dayno gaalada dimuqraadiyadda maraykanka haddaynu raacnayo waxa la midka ah ingiriiska yiri dee waa ku jabayna dee iyagu dimuqraadiyaddu waxay gaadhay inay taa laba nin hay isguursadeen
haddaynu tooda ku daarin halkaasay noola gelaysaa bal hadda haloo fiirsado waa dimuqraadiya waxaa doonaan samaynayaa war bal haloo fiirsado dadka raacaya dhalinyarada weliba taalantaasaan ka leeyahay waxaan kusoo gabagabeynayaa somaliland loo warwari maayo dowladda xamar ka dhisan oo aad og tihiin inta weerara nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekedaa berbera mashruuciisa dekedaa laga bilaabay waxay isu taagtay dowladda ciraaqaadka carruurtaan u jaraynaa meeday ka dacweysa waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa la odhan jiray special fund for somaliland oo yurubiyanku isugu tegeenoo somaliland mashaariicda laga caawinaya laga siin jiray maamulan jirtay warqad bay qoreen annagaa la ictiraafsan yahay oo waa gobol laga mid ah cunaha la qabanaya haddayna diyaaraha gudbinina waxa ku xigtay ekaw isku dayaan diyaaradu aan halka soo marin waxa ka mid ahay dowladda somaliland soo dhaweysa ama marti qaado in cilaaqaadka loo jaloonayaa war waxaa xula gacanta nagu jira meegaa geeda in la soo dhaweysaa oo soo dhaweysaa waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen somaliland gudaheeda ay lahayd seeg u degtaan somaliland ka mid waxaan wax laga naxaa in xisbiga wadani rag ka mid a ammaanahan iswa taagaan oo kula duldhacaan xamar maanta warbato waxaas waysaba ammaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaargaroobo cadowga koobaad oo u egta ba waxaynu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xidhaayay airbortka ee maanta xamar ay ka gubanaysa isagoo oon xukumin meesha la yidhahdo sida soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan soomaaliyeed maha iska dhaaf siyaasadda ka gaalada miyaynu taasaynu ammaan u raacnaa waxayla tahay meelaha qaarkood aan hubsanno oo inaan ku dhicin cadowgeena dowladkiisa aan ka digtanaano waxaan ka rajeynaya ku wadaarayaa aqoonyahanka jaamacadaha dhakhaatiirta injineerada abwaanada dadka maskaxda fikirka badan lahow talada dalka ka qayb qaata haddii kala tacabkidu khasaaru noqonaya dowladda xamar ka dhisan oo aad og tihiin inta weerara nagu qaaday ilaa maalintii la magacaabay dekedaa berbera mashruuciisa dekedaa laga bilaabay waxay isu taagtay dowladda ciraaqaadka carruurtaan u jaraynaa meeday ka dacweysa waa maxaad u horumaraysaa waxa ku xigtay SDF sanduuqa la odhan jiray special fund for somaliland oo yurubiyanku isugu tegeenoo somaliland mashaariicda laga caawinaya laga siin jiray maamulan jirtay warqad bay qoreen annagaa la ictiraafsan yahay oo waa gobol laga mid ah cunaha la qabanaya haddayna diyaaraha gudbinina waxa ku xigtay ekaw isku dayaan diyaaradu aan halka soo marin waxa ka mid ahay dowladda somaliland soo dhaweysa ama marti qaado in cilaaqaadka loo jaloonayaa war waxaa xula gacanta nagu jira meegaa geeda in la soo dhaweysaa oo soo dhaweysaa waxa ku xigay tukaraq dagaalka ay ku qaadeen somaliland gudaheeda ay lahayd seeg u degtaan somaliland ka mid waxaan wax laga naxaa in xisbiga wadani rag ka mid a ammaanahan iswa taagaan oo kula duldhacaan xamar maanta warbato waxaas waysaba ammaan naga mudan mise in la iska celiyo loo diyaargaroobo cadowga koobaad oo u egta ba waxaynu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xidhaayay airbortka ee maanta xamar ay ka gubanaysa isagoo oon xukumin meesha la yidhahdo sida soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan soomaaliyeed maha iska dhaaf siyaasadda ka gaalada miyaynu taasaynu ammaan u raacnaa waxayla tahay meelaha qaarkood aan hubsanno oo inaan ku dhicin cadowgeena dowladkiisa aan ka digtanaano sidoo kale madaxweynaha ayaa mar kale ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay dagaal ku soo wado Somaliland isla markaana ay dhinacooda diyaar u yihiin Soomaaliya Ethiopia intaba waa la ictiraafay intaba waa la taageeraa intaba baanka adduunka intaba waa la garab taagay Somaliland soddon sano ilaahay mooyee ciidana ma ictiraafsana ciidana wax uga ogola waliba cadow xoog oo la dagaalamaya hadana bifadli illaahi wa xamdihi ilaahay iyo midiisa oo midaysan iyo tishigeena ayaynu ku taageerno walba salka galna waxa ka Soomaaliya gaar soo qaadaya laba dawlad baan wahayn dhixkii midoobay ay ka dutay midnimadi istilay midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar u dhisatay soddon sanadood waa la ictiraafa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo qurihi 140 milyan bus iska dhaaf jimcada qurba ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadii eeg waxaas u dhigay galiyay oo inta soo garan haysata oo si walba loo taageeray maanta Kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalmo buu xidha waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda Puntland baa doonaysa wata maanta la qarxiyay waxaana wadada dawladda farmaajo ee waxa soo taageerayay ayaa fidmadaas soo dhawada oo markay intaas oo dhan ka dagaalamayay waxay ka wadaa waxaas waa tababar kuwa ku soo tababaraysa oo ku soo diyaar garoobisa Soomaaliland oo soo diyaarta
colaadeeda oo ay ku soo maqanta Soomaaliland waa ku gaamurtay inay cadawga iska celiso diyaar baan waa aragnaa waxa soo wada farmaajo Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka News magaalada Hargeysa